رئيسل وزراء waddanka Ciraaq ayaa ku dhaqaaqay tallaabooyin wax ku ool ah oo lagu la tacaalayo dhimista kharashka dawladda iyo wax ka qabashada arrimaha musuqa. Ra'iisul wasaaraha ayaana ku tala jira inuu joojin doono ama tallaabo sharci ka qaado madaxda ka socota dhinaca diimaha iyo xisbiyada. Faallada warkaasina aanu talowno. رئيسل وزراء waddanka Ciraaq Xaydar al-Ibaadi ayaa ku dhaqaaqay tallaabooyin uu kula tacaalayo dhimista kharashka dawladda iyo wax ka qabashada arrimaha musuqa. waxa uu ku tala jiraa ra'iisul wasaaruhu inuu joogooyinkooda uu ka qaado madaxda ka socota dhinaca diimaha iyo xisbiyada. waxaana ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka kuwaas oo joogooyinkooda loo dhiibi doono kuwa aan ku dhisnayn diimaha iyo siyaasadda. laakiin qorshaha ra'iisul wasaaraha waxa la hordhigi doonaa golaha baarlamaanka si loo ansixiyo. Mr. Cibaadi tallaabadan waxa uu ku dhaqaaqay kadib markii ay shacabku ay banaanbaxyo iyo kacdoon ay sameeyeen waxa ayna shacabku ka cabanayaan leedkii oo go'ay kuleelkiina uu kor u kacay. arrintaas oo gadood shacab u keentay ra'iisul wasaaraha. hogaamiyaha diiniga madhabta Shiicada ee Ciraaq Ayatollah Ali Istisaali ayaa ra'iisul wasaaraha ka codsaday kuna booriyay inuu tallaabo adag ka qaado madaxda aan waajibaadkoodii gudanin. waxa uu hogaamiyaha diinigu uu ka codsaday ra'iisul wasaaraha madaxda jeegooyinkooda laga qaadayo in lagu bedelo madaxweyne iyo karti leh. dawladda Ciraaq ayaa waxa ay leedahay 3 madaxweyne ku-xigeen iyo 3 ra'iisul wasaare ku-xigeen oo ka kala socda Shiicada Sunniyiin iyo Kurdiga.